dadka bani aadamka dhamaantood waxa ay u baahan yihiin oo kamid ah baahiyahooda aasaasiga in ay helaan waxbarasho caafimaad hoy iyo ay huwadaan intaba dadka ilxaadkoodu kala dhiman yahay gaar ahaan kuwa dhagoolayaasha ayaa bariyahan dambe iyagu waxa ay si fiican waxbarashada ay u ahayd kaalin ay ka soo dhalaalaan oo ay kaalin laxaad ay ka qaataan dugsiga dhagoolayaasha ee ku yaala magaalada Boorama ayaa taasi isagu markaasi furo u noqday ardayda dhagoolayaasha markii ay dugsiga dhexe kaasi ku dhameysteen kadibna secondary-ga ay dhameysteen hadda waxa ay bilaabeen in ay markaasi jaamacadaha dalka qaarkood ay dhigtaan jaamacadda Camuudna ay noqoto tii ugu horeysay oo ay markaasi soo galaan arday ilxaadkoodu ama dhagoolayaal ardaydaasi dhagoolayaasha barnaamij gaar ah oo aanu dawadayaal ku soo qaadan doono ayaa iyagu dadka ka hadli doona waxa kamid ah Muuse Galde oo isagu ah maamulaha qaybta freshman-ka la yiraahdo ee jaamacadda Camuud oo kale waxa kamid ah macallimiinta qaar kamid ah xigeenka gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Ahmed Cabdullaahi Boqorre iyo ardaydaasi dhagoolayaasha nafahantooda oo iyaguna ka qayb qaadan doona tiradooda guud waa 7 arday waa 2 gabdhood iyo 5 wiil tirada hadda farashka joogtay ay dhigtaan sida ardayda kaleba ay u qaataan maadooyinka ay u qaataan Englishka waxay 3 course bay ka qaataan reading iyo writing iyo language structure oo grammar-ka saddexdaa way ka qaataan waxay qaataan oo kale maths oo pre-calculus sociology way qaataan waxa kale oo ay qaataan Islamic study oo aan luqada Carabiga ma garanayaan luqada Carabiga waxaanu ugu bedelanay inay Islamic history qaataan oo English ku qaataan waayo wax English ma aha ma garanayaan ardaydu luqad kale wax walba waxaanu ugu gudbinaa English sida darteed waxa ay wax la wadaagaan oo ay koorsooyin la qaataan ardayda caadiga ah caqabada ilaa hadda hor taagan waxa weeyaan caqabad macallin la'aaneed taasina waxa weeyaan macallin sign language ki garanaya in aan helo ayaa muhiim ah إن شاء الله تعالى ونكبح دونا حتى سوى حنجا كعلا ونجا جرجارة أرضيات كم ده أرضية فصل كلا فريسة وحلا دقت أيام نجا كاشة ونجا جرجارة إن شاء الله مستقبل كانوا كنت لجرا إن أنا أوكي معلم قرني يسأل وجه بسم الله الرحمن الرحيم وهون كلاس كان مقصود بالعتين الساعة وحكوتشرا تضبط أرضي ودقولي له تضبط أرضي waxay markoodii hore wax ku soo barteen dugsigan la yiraahdo dhagoolayaasha ee ay aasaastay islaantii Talyaaniga ahayd ee loo jiray Annalena Tanori xaqiiqdii afar haddaan kala qaado waxaan oran karaa afar arrimood ayaan ku kala qaadi karaa habka waxbarashadooda mid waa management class ama maamulka classka exercises ama activities classka laga shaqeynayo coursework-iska aan u diro ee ay ardaydu ku kula shaqeynayaan iyo sharaxaadda classka afartaasna kala qaadi karaa xagga management-ka haddaan ku horeeyo maamulka classka khalad baa nagu dhacay maalintii u horeysay khaladkaas wuxuu ahaa ardaydii ka mid ahayd xiisadan aan dhigaa 3 saacadood bay socotaa 6:00 subaxnimo ilaa 9:00 subaxnimo 8:00 marka la marayo waxa dhacay in 10 minutes per fasin maalintii horeysay marka ardaydii afku ma uga sheeg 10 minute ee la dareeray 7 arday dhagoolayaasha iyagu way ruuxeen waxay u qaateen in la ruuxay kalaaskii markii lagu soo noqday waxa ogaanay in ardayda dhagoolayaasha noqotay taasi waxay keentay marka inaan xil badan iska saaro classeska aan leeyahay ama xiisadaha aan leeyahay wixii inta ka dambeeyay afka aan ku wada hadlayno waa inaan sabuurada wax ugu qoro wax khalad oo maalinta dadeed ma dhacay taas waa maamulka classka xagga sharaxaad khayr Allah siiyo gabadh baa jirta la soo barbaartay oo wax la soo baratay dugsiga hoose dhexe ilaa secondary oo classka kamida sharaxaadda markaan bixino iyada ay soo taagtay sabuurada cidifka ka taagan maahan cidifka kale si wanaagsan baa ugu sharaxdaa taasina saasi ku baxdaa waxa jira sidoo ku ogaanaysa hadaba ardayda inuu casharka muddada 3 saacadood ee classka wuxuu dhigayo ugu yaraan waxaan maalintii ku soo daraa 2 exercise layla ka shaqeynaya classka dhexdiisa ardaydani wax allaale iyo waxay kaga duwan yihiin ardayda kale haba yaraatee ma jirto qaarkood baa ardayda wanaagsan ku jira layla marka sabuurada ugu qorto markaa way ka jawaabayaan iyagu jawaabtiisa ay ku keenayaan oo sax sidaas ku ogaanaysa markaa inaad isla haysataan bismillaah wasalaatu wasalaamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam horta ardaydani oo kuwii ugu horeeyay oo ka qalin jabiya iskuulka dhagoolayaasha Boorama oo nagu soo kordhay runtii sanadkan soo galay
waxaan hadda 6 baa ku jira waa afar wiil iyo 2 gabdhood marka markay yiraahdeen jaamacadii baan u baahanahay in fact anagu marka hore lama socono maarta qorshaha loogu talagalay ardaydaasi marka ay ka baxaan dugsiga sare ay soo dhamaystaan maarta imtixaanka Soomaaliland waxa aad iyo xorta xiisale inay maarta soo dhamaystaan shahaadadii secondary-ga Soomaaliland ay soo qaateen إذا واحد جامعة تيبان وقرنا تينا لسه عن كريان يانا لسه عن كريتي واحد ولا لسه عن كرينا سيدي بجامعة تكسوق الواحد كرينا أنا بوق كمان كرينا واحد إن أنا هرت بالسوق على نظام مارتا وأنا ولي هرت العك قادم العك ما أنا قادم مركا واحد أنا مهرنا وقف كنا ما هنا حتى واحد قلت سنة مركا سيدي واحد لاقو قبل لها أنا لفت أنتي حنو قبل كرينا ونسكتينا لكن إن هذا يخصي سنة رنتي أنا وحجر رادينا سيدي تريال كوجا لما كاس محام كوجا دليل كاسير جامعة ولا ما يسمعي فكأنا كل إنتي أقول تيجي تواب أنا كوا كلنا ما أعرف جامعة الدكتور لكن وحين تاكا بس وحنا كاسرينا هذا يخصي سو تريا ومركي أوه الرئيسية أفتي محام كوجا على سكول دكتور إلى هير كاسو كارن التعليمات سو كارن وحن برشاد الصومال لا الفرية وطد إلهي ما أفطرت تسلاس معوقين كون ما لحد له كنتي سويت هذا لأن الوالد كوجنا إلا سويت هذا لو أنت كوريا فقيرة بيبدأ بكيماته مركا وحن برشاد الصومال لا الفرية وحل عليه وحل واقع بنكره تعليم تودا كوساب سنة ماتريال كوساب سنة وإنام وحوالله على هذه وأرين بلا أدنى واي برشاد الصومالية تي waxa ku fiicantay kulli ba maarta taageerada ardayda nood markay caadiga waa la taageerada faqiirka iskuul dhigan way waa la laakiin aad dagaala waa hadana wax baranaya horta waa mucjisad maarta inaga sharaf ay noo tahay bulshada Soomaaliland way lama barhumaysan karo iskuuladii kala aan la rumaysnaa jaamacadii kale laakiin ardayda ka soo galmada bulshada waxa ku guubaabinaya inay maxaan ku dhaaday waxba aanay ka hakranin Allah aad daahir mutin هذا مثير وحضانه إنه أورورية history collector إنه نقطة تاريخ أوروريها إنه يعني كهدية history جوا حيابها تاريخات كاس نقول كاس وحلا محمود وحضانه إنه نقطة يسوونه engineering إن كاسنا وحلا يرى وجيل وحضانة إنه أورورية information كا أي أي ما بيجي إنه نقطة ورية إنه الصحف نقطة ثانية يدا وحضانة ساي مجعد وحلا يرى وأوبح وحضانة ساي نجامعة عاوزه أنا نقطة شقالة جامعة أي نقطة قيب تولي بقرقار تدت كسومها ها أوكي iyada waxay doonaysaa inay noqoto laakiin waxay ka cabsi qabtaa mustaqbalka qofkii siin lahaa explanation iyada waxay rabtaa inay noqoto dhakhtar laakiin waxay ka cabsi qabtaa mustaqbalka qofkii siin lahaa sharaxaada waxaan inta fasalka ay bana freshka dhamaan adiga iyo asxaabta kale dhigolayaashiiba meel bakooda dhigataan adalka ka baratay afkan sign language أنا وحنا كبر دافع لسان وجه أرترنتي قف والبح كدريا أنا رنت وحنا كبر سجبر نجرب بدأ يا ما كان حيصد جلاسي بمدريين شرني ميكسر بان ذات تايم يجنا جارلو ما كان سهرين يعني جلاسة لو دح في الدين ما كان أركي جبر إنه وح صورة فواحد يقول الله إن ما كان ودي كل واحد محاك ولا يقول روح بك بفهمي فواحد يقول الله إن أصلا يجي شرحات يجي يسوي حفازينا من نبرت هذا اللي قدم مركي جوري سالكت كبرت فريق أنا حمرت يجي كان كوس برت كنت ميركل وما جن جامعة لكن يجي كوس برت